waxaa guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland ku baahday shaqo la'aan ballaaran oo ay dhalinyarada reer Somaliland si joogto ah uga cawdaan shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta geeyiga Somaliland iyadoo ay cod hoose iyo cod sare baqayladaan ugu dirayaan Somaliland ganacsatada hay'adaha madaxa bannaan iyo waliba kuwa maxalliga mana jirto cid haba yaraatee jawaab ka celisay catowga iyo codsiga isdaba joogga ee dhalinyarada reer Somaliland taasina waxay fursad u noqotay tahriibta oo ay maalinta ka dambaysa u sii dhalandhoolayaan dhalinyaro aad u tiro badan oo ka fara laabatay isla markaana ka rajo beelay deegaanada iyo geeyigii ay u dhasheen waxaana dhalinyaradaasi badankoodu ku sii dhibaatoodaan jidadka ay sii socdaan sida saxaraha u dhaxeeya Liibiya iyo Suudaan iyo waliba badda ah meesha ugu khatarsan ee nolosha ka qarisay dhalinyarada tahriibta siiba kuwa Soomaalida oo si joogto isaga daba taga si kastaba ha ahaatee waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland gaar ahaan reer Burco oo arintaasi ka hadlaya هذا كله برنامج كان شغال دولد ما دولد ماشي واحد شبابنا وكان شيء شباب ووطن حر سو احنا لها اولياء اللي وصلوا يوم ملك بدك عيال وحسب كيني ان ardayda اولياء ku yirato inay wax sameeyso ama shaqo abuur sidii riftin marka waxaan u lahaa dhalinyarada in waxaan u lahaa dawladda waa ay sameeyso meel ku bedel lagu ciyaaro ay wada rigeliso approach ku sameeyso ama waa mid sameeyso maxay adilay waxaanti dhalinyaradu ma haysto kuwa jaamacadaha xira oo yari kuwa secretary-ga marka ka baxaan ay jaamacad waayaan ana way tahriibaan ana way qaad bay iska curo bulwada bilaaba waxaanti dhalinyarada bulwada wax ku kalifa barashadaanta dhammaan waxaan u hadlaynaa dawladda ka socda macal siinayaha waxaan sheegnay dhalinyaradii qabla amal shaqada ay soo dhaafay dadkii waaweyn dhammaan dhalinyaradii ka soo baxay dugsiyada ilaa foor ilaa wixiiba kulli waxaan arkaa qaar su'aashaada isaan dawladda meesha taaban gobolkeena dhalinyarta ariyaadii amal waxaan kaliya ka caban amarka gobolka dalka ee waxa aad u marin karaa isku soo wada xoor iyo arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay shaqo la'aan baahsan haysato guud ahaanba dhalinyarada reer Somaliland waxaanay dhalinyaradu eedda koowaad saarayaan Somaliland ay ku tilmaameen mid iyadu meesha ka saartay sidii ay dhalinyaradu u heli lahaayeen fursado shaqo oo ay dhalinyaradu ku shaqaysato si ay dhalintu uga badbaado way yiraahdeen tahriibta iyo waliba waxyaabo kale oo aan caadi ahayn sida mukhaadaraadka iyo burcadbadeednimada Laki Aadan Yuusuf Laki Cooraf telefishinka caalamiga ee Somalisat Burco.